والله ما سنتهاي مقعي وحالة أحمد عبد السلام شخص صديق مواطن كسر جيدة دول كجدر يعني عندك مدلو إن بدنا دقنا ودين ترانا تدعانا وبيرليك ودقن يعني معي عبشرة وحاواي ما أنت مش كتاجن مرة بعد لقيت جو بيرها وحاواي بيري دقان هذا كبير ترى قصة موجودة كلات وحاواي دكتور بيرها لها يا واحد dad mataqaanaa ay beeri ka buubiya marya laba aduug meel ka dhacda way tahay dad mataqaanaa xoog doona dadka meesha deganna waxa waay dad qad family ah wixii kala dhex deganna waxay doonayaan beerahooda inay ku darsadaan xaalina waxa inay ku buubiyiin waxa cadeynaysa in beer lahayn oo mataqaanaa beerta dadka ilaahay la wada yahay dad culimo oo waaweyn oo waayeel oo ka soo gaara ya beertii inay ka qaataan madaxay oo ay jirtaan oo beerta oo soo qaataan damceen waa la soo dacwooday maamulka meesha ka jira ayaa la yiri maamulkii markii loo soo dacwooday dadka la qaaday odayaashii beelaha deegaanka isku wada yeeray markii marqaati la isku wada imaaday beertii waxa cadaatay oo la wada ogaado la wada cadeeyay in ay leeyihiin beerta dadkii asalku ahaa dadkiina waa dimadii maray maxkamadii waxa xukuntay kadib haddana waxa waay taawad kale soo sameeyeen ciidankay galeen askar bay qorteen dadkii dad waxa waay iska shacab ah waxa waay maalin walba beertii waxa waay haddii beertii inay tabcaan waa laga joojinayaa waa la soo xirxirayaa qofkii qof mataqaanaa faliga oo soo dacwootana wax xabasho ah ama wax si lagu sameeyo malahan maalin kasta waxa waa iyaga ixtiraamaya oo askar ahaan isku xeerfanayaan iyo in hadda sheer ku yihiin dadkii wada qaataan rabaan taas runtii wallahi ma kala cadeyn karo oo saacad u arkay inay sheer ku yihiin ma malaynaya wada qaadan rabaan dadkii marka waayeeladaha iyo odayaashii la soo xiranaya cid mataqaanaa ka danqanaysana male cid mataqaanaa maanta naga dacwoonayana male maxkamadda meesha mataqaanaa xukuntana fulin iyo awood ay ka tiraahdo ma garanayo beer la xukumay oo la wada arko dadkii odayaashii nabadoonada iyo salaadiinta meesha deganaana ay kaga dhiidan laayihiin ay haddana raalli ka yihiin oo la wada aamusan yihiin waa gartay hadda xiisad miyaa taagan markaa xiisad baa taagan mar walba waxa waaye darhaata wadaadka la soo duqood waayelka meesha la soo xidhay markuu cid u imaado garan waayay oo yaa xidhay aan xirnaay handadaad baa jirta waa la handada wiilash yar hay dar waa la handada waa duuqi kala galan waa la wada xirsaday oo waan hudina baa leeyahay laba qoys waxa waa qoysas waxa waa dadka muwaadiniin ah beerahaas laba beerood meesha lahayn beer hore u dhaceen ba falankeeda beerta kale rabaa in la dhaco oo hadda qaaytaankeeda la joogo wiilash duuqi kala careen duqo waayelka meesha ku xiran yahay runtii maamulkii hore ilaa muddo soo darjiidmaysay maamulka cusub hadda la magacaabo gudoomiyaha cusub loo soo magacaabay aan lahayn ama wax ka badalaa isagana runtii ma arrintaas ma gaari karto oo dad ka sokeeya saldhigii yaa dadkan gacanta ku haystaan oo iyaga mataqaanaa u takrifala iyo gacantooda ku adeeganayaan odayaasha wiilashii duqan waa xiran yahay wax allaali wuxuu ku xiran yahay hadda lama garanayo shalay ugu dambeysay beertii asagoo talcanayd oo aseendada ahayd oo meel ku talaalan tahay yaanyo meel ku talaalan tahay basal meel moos ku talaalan tahay iyo damceen inay kareeto dhex mariyaan waa nin shacab isku fadhiya askariya markuu yidhi meel kale uu soo maro waayay yidhi demo haga marinin kareetada mataqaanaa meesha markuu yidhi wuxuu yidhi waa aad ka guuraysaa meesha adaa ka guuraayo waad mu dhimanaysaa saas haddana intu soo baxay oo magaaladii lasoo qabsaday oo la xidhay wuuna u xiran yahay cid allaalihi cid waxaa waay aabihiisaana mataqaanaa kaga dambeeyo oo wiil kale la sheegaa dhahaya markii horeba wuxuu u galay askarta u galay ma ahayn dowladnimada baarka ma ahayn inuu beertan ku dhaco ay raggaas u wada galeen marka odagiina waa xiran odayaashu waa xiran yihiin dad mataqaanaa de meesha hadda waxay noqonaysay dad awood kula oo hadda maanta baarka ah ma ahan marka xiisada taagan waxaan u malaynayaa arrin hadda foorxumo soo wada waaye marka saddex calaamo waan u jeedinayaa mid waa midoo mataqaanaa beesha meesha degan mareexaan khaasatan weliba reer axmed waa midoo waxaan leeyahay odayaasheeda iyo deegaankeeda waa la soo yaqaanaa reer sheekh sadiiqna waa la yaqaanaa beertaasi hadday dhacantay iyo haddii baalki istaba beerihii horena waa la wadoogaa iyo meesha deegaanka si ay u leeyihiin iyo beerta si ay u leeyihiin waxa dhan way xogtooda way hayaan haddaad ka aamustaan waxay noqonaysaa inaad raalli uga tihiin beerta dhaceeda inaad ka hadashaan oo qofka dulmiiraha aad qabataan waa shay mid muhiim oo ii fiican soomaalida meel walba wada degtaa dal walbana waa la wada degaa nin walbana meel mataqaanaa maqaam uu qof hadduu ugu talagalay inuu ku waxyeeleeyo waa leeyahay waxaan leeyahay samaanta inaad ka talisaan oo nabadoonnimada aad martaan oo dadkaasi dulmigaas haddaad la aamustaan in idinka idinku soo baxayo ogaada wataquu fitnata laa tusiibanna aladiina dalamuu minkum khaasa aayad quraan qofka fitnada midka khaaska idinka kusoo noqonaysa inaad kasii digtoonaato waa midna waxaan leeyahay maamulka degmada gudoomiyaha cusub ee degmada loo magacaabay arrintan hadduu soo faragelinin oo musuqmaasuqa meesha ka jira talaba aysan gacan ku haynin ciidamada mataqaanaa askarta mataqaanaa in walba haddii beer lagu dhacayo
beerta kale taa dariska waa loo geeyay dhacday ku haysta beer ma ahan ay lahaayeen ama ay tadcadeen ma ahan haddii uusan faragelin maamul xumida ka soo gaaraysa maanta lama taagna waqtigii beer la kala dhici lahaa ama la kala qaadan lahaa waa ka horeysan adduunka nin walba wixii hore u haystay buu celinayaa ama geelaha haato gobolka banaadir waa arkeen waa maqasheen ama waa la arkay qofka dadka waa la soo rayaa sagaashimaadkii gobolkii la kala qaatay iyo guryaha la kala qaatay dib isku celinaya maanta waqti wax la doodo lama taagno waxaan leeyahay sharaf darro maamulka gobolka Gedo ku tahay iyo maamulka Jubbaland guudba gobolka Gedo waxaan leeyahay sharaftiisa inaad ilaaliso degmada iyo maamulkeedana sharafta aad degmada ku tahay musuqmaas oo ka wadana inaad iska qabataan oo qalabka tustaan waa shay muhiim ah marka labadaas waan leeyahay dadka la dulmiyayana waxaa waa qof markii la dulmiyo oo markii meesha u dacwoon lahaa ee ka soo qabsato la yiraahdo markuu soo dacwo dhaaba asaga la yiraahdo waa xiran tahay mar labaad intii haddana uu soo dacwo waa la xiran tahay beertina lagu takifayo waxaa waa meesha marka musharaf xumi waayo dadka marka u dacwoonayo maxkamadaha shabaab u dacwoonayo markaasi waa garab bay noqonaysaa in qofku markaasi meel uu soo dacwoodo dusan lahayn inuu duurka galo oo dad kale u dacwoodo santaas qasbaysa markaasi ka dambeeya marka sharafta intay taagan tahay qofku maamulka ictiqaadsan yahay uu hoos joogo uu hoos taagan yahay in lagu guuleysanayo waxaan leeyahay sharafta magaalada maamulka iyo xeer ilaaliyaasha iyo xeer maxkamadda wax walba arrintaas in hoos u fiirinin waxaan leeyahay meesha dhibaatooyin baa ka soo socota